dhammaan odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiya dhibanayaasha magaalada Muqdisho rag iyo haween la bahda saxaafadda waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii waxaan aad u dhageysanay hadalladiinii iyo cabashadiinii iyo doodiinii markii hore waxay nagu ahayd wax naga fog si dhow ayaad nala socodsiiseen si faahfaahsan ayaad u soo bandhigteen aad iyo aadan uga xunnahay waxa dhacay waxa idinku dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawac Allah caafiyo inta barakacday aan hooy haysanna ilaahay subxaanahu wa ta'aala hooy wanaagsan oo adduunka aakhira Allah siiyo aad waxaan uga xunnahay dawladda Soomaaliyeed ee loogu tala galay inay dadka iyo dalka difaacdo in ay maanta ku mashquulsan tahay dadka inay barakaciso sida saaxiibada ay sheegeen annaga qayladaas horaan u bilownay kama tanaasulin laakiin shirkan waa shirki ugu horeeyay in dhexmara annaga iyo adinka dadka Soomaaliyeed waxay ku jiraan duruuf adag waxay baahi u qabaan dawlad danahooda ka shaqeysa waana waxa laga filayo dawladdan runtii dawladihii ka horeeyay arrinta dhulka aad uga leexdeen aad isaga ilaaliyeen nasiib darrada dhacday maanta waxay tahay dadkii Soomaaliyeed ma taqaana u baahnay kaalmada in la barakiciyo qofku marka uu waayo hoy oo qoyskii meel deganaa meel ku asturmo oo waayana dhibaato aad u weyn soo food saartay arrintaas arrin caqli gal ma aha qof wax gartaana ma samay karo marka dawladda iyo ciidamada iyo ganacsatada arrintaas ku howlan waxaan leenahay joojiye arrintan xadkeedu waa dhaaftay maanta waxay joogtaa nin wax lahaay iyo niman wax lahaynba inuu taabto arrintuna sida ay ku socoto uma eka inay ku joogsan doonto sidaan arrinta labaad waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dalka shacabka iska leh dawladdu waa maamusha dhul dawladdu ku shaqeynaysay haddii laga maarmo wuxuu u noqonayaa si automatic ama si toos ah dadka iska lahaa jiray ama kuwa jooga oo markaas degan meel kale ma aadi karo dhul dawlad looguma dhiibo kumana maamusho inay gado ganacsato kale ka gado jeebka lagu shubto kuma taas sharciga kuma qorra marka doodiini iyo dacwadiini waa dhageysanay talaan isugu noqonaynaa jawaabaan idinku soo celinaynaa maadaama waqtigii salaada la joogo caawa halkaas aan ku joojisano dhammaan odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiya dhibanayaasha magaalada Muqdisho rag iyo haween la bahda saxaafadda waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii waxaan aad u dhageysanay hadalladiinii iyo cabashadiinii iyo doodiinii markii hore waxay nagu ahayd wax naga fog si dhow ayaad nala socodsiiseen si faahfaahsan ayaad u soo bandhigteen aad iyo aadan uga xunnahay waxa dhacay waxa idinku dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawac Allah caafiyo inta barakacday aan hooy haysanna ilaahay subxaanahu wa ta'aala hooy wanaagsan oo adduunka aakhira Allah siiyo aad waxaan uga xunnahay dawladda Soomaaliyeed ee loogu tala galay inay dadka iyo dalka difaacdo in ay maanta ku mashquulsan tahay dadka inay barakaciso sida saaxiibada ay sheegeen annaga qayladaas horaan u bilownay kama tanaasulin laakiin shirkan waa shirki ugu horeeyay in dhexmara annaga iyo adinka dadka Soomaaliyeed waxay ku jiraan duruuf adag waxay baahi u qabaan dawlad danahooda ka shaqeysa waana waxa laga filayo dawladdan runtii dawladihii ka horeeyay arrinta dhulka aad uga leexdeen aad isaga ilaaliyeen nasiib darrada dhacday maanta waxay tahay dadkii Soomaaliyeed ma taqaana u baahnay kaalmada in la barakiciyo qofku marka uu waayo hoy oo qoyskii meel deganaa meel ku asturmo oo waayana dhibaato aad u weyn soo food saartay arrintaas arrin caqli gal ma aha qof wax gartaana ma samay karo marka dawladda iyo ciidamada iyo ganacsatada arrintaas ku howlan waxaan leenahay joojiye arrintan xadkeedu waa dhaaftay maanta waxay joogtaa nin wax lahaay iyo niman wax lahaynba inuu taabto arrintuna sida ay ku socoto uma eka inay ku joogsan doonto sidaan arrinta labaad waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dalka
shacabka iska leh dowladdu waa maamushaa dhul dowladdu ku shaqaynaysay haddii laga maarmo wuxuu u noqonayaa si automaatiga ama si toosa dadka iska lahaa jiray ama kuwa jooga oo markaas degan meel kale ma aadi karo dhul dowlad looguma dhiibo kumana maamusho inay gado ganacsato kale ka gado jeebka lagu shubto kuma taas sharciga kuma qorra marka doodiini iyo dacwadiini waa dhageysanay talaan isugu noqonaynaa jawaabaan idinku soo celinaynaa maadaama waqtigii salaada la joogo caawa halkaas aan ku joojisano